war degdeg ah dunidu maanta waxay ku jirtaa marxalad xasaasi ah, dagaalo cusub, gantaalo la isweydaarsanayo iyo xiisado siyaasadeed oo sii kordhaya bariga dhexe, badda cas iyo Aasiya. Dhammaan meelahaas waxaa ka socda dhacdooyin waaweyn oo saameyn ku yeelan kara dunida oo dhan. Daawada qodobadan maanta ayaa si qoto dheer u falanqeyn doona ee nala joog ilaa ay dhamaadka. Qodobka koowaad, xiisadda Iiraan iyo Israa'iil. xiisadda u dhaxaysa Iiraan iyo Israa'iil ayaa sii kululaanaysa. Daawade warbixino cusub ayaa sheegaya in labada dhinac ay isdhaafsadeen weeraro drones iyo gantaalo ah, taasoo cabsi gelisay dalal badan oo caalamka ah. Dagaalkan waxaa si dhow ula socda Mareykanka iyo xulafadiisa. Daawade siyaasiyiinta Mareykanka oo ay ku jiraan Donald Trump ayaa si weyn uga hadlay sida loo xakameyn karo xiisadda bariga dhexe. Falanqeeyaashu waxay sheegayaan in haddii dagaalkan sii fido uu saameyn weyn ku yeelan karo bariga dhexe. Qodobka labaad, weerarada Xuutiyiinta ee badda cas. Daawada dhanka kale, xaalad kale oo halis ah ayaa ka socota badda cas. Ururka Houthis ee Yemen ayaa marar badan weeraray maraakiib ganacsi oo maraya marinada caalamiga ah. Xuutiyiintu waxay sheegeen in weeraradoodu la xiriiraan dagaalka Gaza, halka dalal badan oo reer galbeed ah ay ku eedeeyeen inay khatar ku yihiin ganacsiga caalamka. Sababtaas awgeed, maraakiib dagaal oo Mareykan iyo Yurub ah ayaa lagu arkay badda cas si ay u ilaaliyaan maraakiibta ganacsiga. Arrintan ayaa keentay in shirkado badan oo maraakiib ah ay joojiyaan isticmaalka marinka Suez. Qodobka saddexaad, dagaalka Lubnaan. Xaaladda gobolka ayaa sii muruqsan markii dagaalo kale ka bilowdeen xadka Israa'iil iyo Lubnaan. Kooxda Xisbullah ayaa gantaalo ku tuurtay waqooyiga Israa'iil, halka Israa'iil ay duqeymo culus ka fulisay gudaha Lubnaan. Dadka rayidka ah ayaa noqday kuwa ugu badan ee dhibaatadu gaartay, iyadoo kumanaan qof ay ka barakaceen guryahooda. Qodobka afraad, xiisadda Afghanistan iyo Bakistan. Aasiya sidoo kale waxaa ka jira xiisad sii kordhaysa. Bakistan iyo Afghanistan ayaa isku eedeeyay weeraro xuduudda ka dhacay. Duqeymo iyo dagaalo yaryar ayaa la sheegay inay ka dhaceen meelaha xadka ah. Khilaafkan ayaa khatar ku noqon kara amniga gobolka haddii aan xal degdeg ah la helin. Qodobka shanaad, dunida oo ka walwalsan. Dhacdooyinkan isbiirsaday ayaa keenay walaac weyn oo caalami ah. Khabiirada siyaasadda waxay sheegayaan daawada in dunidu gasho waqti xasaasi ah maadaama dagaalo badan ay isku mar socdaan. Dalal badan iyo ururo caalami ah ayaa hadda ku baaqaya wadahadal iyo xal siyaasadeed, halka awalna ay ahaayeen kuwa aamusan. Daawade dunida maanta waxay u muuqataa mid sii galaysa xiisado cusub. Su'aasha ugu weyn ayaa ah, ma sii fidi doonaa dagaalada mise xal ayaa la heli doonaa? Haddii aad rabto wararka iyo falanqeynta ugu dambeeya, subscribe saar channelka Abuu. Daawade maxaad adigu ka fikirtaa xaaladda dunida maanta? Ku qor kommentiga. daawade haddii aad ila joogto ilaa ay dhamaadka waxaan ku leeyahay ugula salay nabigeena sharafta leh Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ramadaan kariim. war degdeg ah dunidu maanta waxay ku jirtaa marxalad xasaasi ah, dagaalo cusub, gantaalo la isweydaarsanayo iyo xiisado siyaasadeed oo sii kordhaya bariga dhexe, badda cas iyo Aasiya. Dhammaan meelahaas waxaa ka socda dhacdooyin waaweyn oo saameyn ku yeelan kara dunida oo dhan. Daawada qodobadan maanta ayaa si qoto dheer u falanqeyn doona ee nala joog ilaa ay dhamaadka. Qodobka koowaad, xiisadda Iiraan iyo Israa'iil. xiisadda u dhaxaysa Iiraan iyo Israa'iil ayaa sii kululaanaysa. Daawade warbixino cusub ayaa sheegaya in labada dhinac ay isdhaafsadeen weeraro drones iyo gantaalo ah, taasoo cabsi gelisay dalal badan oo caalamka ah. Dagaalkan waxaa si dhow ula socda Mareykanka iyo xulafadiisa. Daawade siyaasiyiinta Mareykanka oo ay ku jiraan Donald Trump ayaa si weyn uga hadlay sida loo xakameyn karo xiisadda bariga dhexe. Falanqeeyaashu waxay sheegayaan in haddii dagaalkan sii fido uu saameyn weyn ku yeelan karo bariga dhexe. Qodobka labaad, weerarada Xuutiyiinta ee badda cas. Daawada dhanka kale, xaalad kale oo halis ah ayaa ka socota badda cas. Ururka Houthis ee Yemen ayaa marar badan weeraray maraakiib ganacsi oo maraya marinada caalamiga ah.
xuutiyiintu waxay sheegeen in weeraradoodu la xiriiraan dagaalka Gaza halka dalal badan oo reer galbeed ah ay ku eedeeyeen inay khatar ku yihiin ganacsiga caalamka. sababtaas awgeed maraakiib dagaal oo Mareykan iyo Yurub ah ayaa lagu arkay badda Cas si ay u ilaaliyaan maraakiibta ganacsiga. arrintan ayaa keentay in shirkado badan oo maraakiib ah ay joojiyaan isticmaalka marinka Suez. qodobka 3 dagaalka Lubnaan. xaaladda gobolka ayaa sii muruqsay markii dagaalo kale ka bilowdeen xadka Israa'iil iyo Lubnaan. kooxda Xisbullah ayaa gantaalo ku turtay waqooyiga Israa'iil halka Israa'iil ay duqeymo culus ka fulisay gudaha Lubnaan. dadka rayidka ah ayaa noqday kuwa ugu badan ee dhibaatadu gaartay iyadoo kumanaan qof ay ka barakaceen guryahooda. qodobka 4 xiisadda Afghanistan iyo Pakistan. aasiya sidoo kale waxaa ka jira xiisad sii kordhaysa. Pakistan iyo Afghanistan ayaa isku eedeeyay weeraro xuduudda ka dhacay. duqeymo iyo dagaalo yaryar ayaa la sheegay inay ka dhaceen meelaha xadka ah. khilaafkan ayaa khatar ku noqon kara amniga gobolka haddii aan xal degdeg ah la helin. qodobka 5 dunida oo ka walwalsan. dhacdooyinkan isbiirsaday ayaa keenay walaac weyn oo caalami ah. khabiirada siyaasadda waxay sheegayaan daawada in dunidu gashay waqti xasaasi ah maadaama dagaalo badan ay isku mar socdaan. dalal badan iyo ururo caalami ah ayaa hadda ku baaqaya wadahadal iyo xal siyaasadeed halka awalna ay ahaayeen kuwa aamusan. daawada dunida maanta waxay u muuqataa mid sii galaysa xiisado cusub. su-aasha ugu weyn ayaa ah ma sii fidi doonaa dagaalada mise xal ayaa la heli doonaa. haddii aad rabto wararka iyo falanqaynta ugu dambeeya subscribe saar channelka Abuu. daawada maxaad adigu ka fikirtaa xaaladda dunida maanta ku qor kommentiga. daawada haddii aad ila joogto ilaa iyo dhammaadka waxaan ku leeyahay ugula sali nabigeena sharafta leh Maxamed sallallahu alayhi wasallam. ramadaan kariim.